Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikaadshe. Qofka cashirkan kusoo jeedinaya waa Muxiidiin Cabdi Cali, halka aad ka daawanaysa cashirkaana waa Hikaadshe channel. Maanta waxaan ka hadlaynaa at the zoo. Zoo waxaa la yidhaahdaa halka xayawaanka lagu hayo. Xayawaanka waa xero xayawaanada oo kale aan dhihi karnaa, ama meesha loo qaabeeyey in xayawaanka lagu hayo noocay doonaanba ha ahaadeen. Marka maxaan joognaa maanta at the zoo, meesha ama xerada xayawaanka ayaan joognaa. Okay, marka waxaan baranaynaa magacyada xayawaanka, sidoo kale sawirkiina waa soo agdhigi doonaa haddii eebba idmo. Xayawaankan waxaa la yidhahdaa cow, waa sac. cow baa la yidhahdaa, sac weeye. Sanka waxbaa uga xiran, number buu leeyahay. Waxaa laga isticmaalaa dunida kale oo dadku waxa weeye intay xoolaha dhaqdaan oo beer u sameeyaan bay lacag ka sameeyaan, sidoo kale ayagana biilaan, caanaha ka qaataan. Waxa weeye marka waa number bay leeyihiin. Marka cow baa la yidhahdaa, waa sac. Okay, kan waa arigi, goat waa ari weeye, goat. Marka arigu wuxuu kala leeyahay lab iyo dhadig. Labka waxaa la yidhahdaa buck. Buck waa orgi weeye, orgi. Naanina waxa weeye waa rida weeye. Marka darajadooda kuma qiimeynayna, marka yar yihiin ma weyn yihiin intee leeyihiin kuma qiimeynayna, laakiin magaca loo yaqaan ka dhadiga iyo ka labka baan kala qaadanayna. Marka labka waxaa la yidhahdaa buck, dhadigana waxaa la yidhahdaa naani. Buck waa orgi, naanina waa ri. Goatna waa ari weeye. Okay, camel waa geel. Camel waa geel. Okay, geel oo dhan baa la yidhahdaa. Sheep waa ido weeye, sheep waa ido. Idaha laftigooda dhegta waxba u dalaalsanaanta waa ida carbeed. idaha carbeed mataqaanaa diftaasay leeyihiin, sidoo kale idaheenna waa ka qurux badan yihiin, madax madow bay leeyihiin, tin cad bay leeyihiin. day hadda diftooda waxay u egyihiin dhulka ay ku nool yihiin. inta badanna xooluhu waa saas oo kale. Sheep marka waa ido weeye, noocay doonaanba haadana ama laba haadana ama dhadig haadana. Horse waxa weeye waa faras weeye, ama waa faras ama gamaan waxa u taqaanaa. Horse marka laba iyo dhadig ma kala leh. Horse baa la yidhahdaa, waa gamaanta ama faraska. Okay, mare ma waxaa la yidhahdaa kan faraska kiisa dhadig baa la yidhahdaa ma. saasa lagu dhawaqa ma. Stallion waxaa la yidhahdaa kiisa lab. marka waxa weeye tan waa genyo, waa ma, waa genyo. tanna stallion waxa weeye waa faras weeye. Okay, chicken waxa weeye waa digaag weeye, digaag. chicken waa digaag. Rooster waa digaaga kiisa lab. marka chicken aan ku laabanay waxaa soo kale la dhihi karaa kan la cuno mataqaana oo caadiga digaag. Can you give me a chicken please? baa dhihi karaa, maysiin karaa. macnaha chicken waxa weeye waa digaag, maysiin karaa. digaag baa dalbanaysaa, mirid baa joogta. Okay, marka rooster waxa weeye waa kan lab weeye, waa diiq weeye. digaagad baa la yidhahdaa inta badan, laakiin digaag haddii la yidhahdo waxaa lagu qeexaa kan dhadig baa la yidhahdaa. laakiin haddii diiq la yidhaahdo waa kan lab, diiq. Okay, elephant waa maroodi. elephant waa maroodi. Okay, lion waa libax. libaxa kiisa lab baa la yidhahdaa. kan ama ha aado ama kan ha aado. ka waxa weeye gas kale ee waxa weeye biriirtu ka sokayso. lionessna waxaa la yidhahdaa waa libaaxad weeye, waa tan dhadig. waa tan waxa weeye waa boqoradan weeye. Okay, waa boqorada keenta, isagana waa boqor keenta. marka lion waa libaaxa, lionessna waa libaaxada. Thank you for watching, please. aad baa u mahadsantihiin cashirkan daawashadiina. Please don't forget, ha ilaawin fadlan to subscribe, inaad subscribe-ka meesha guduudan inaad cadaysid, like aad saartid, aan share-na ku samaysid sidoo kale. aad baa u mahadsantihiin. gabagabada cashirkada soo gaadhay waxna ka faa'iiday. fadlan inta awaamirta heerta oo ka codsanayo samee. aad iyo aad baad u mahadsantahay. cashir lamida inta aan ku kulmi doono waxayna kaga tegayaa nabad iyo nolol kulantay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.